Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aad leedahay 4 sifo adduunka ma tegin. Midda koowaad haddaad tahay nin run sheeg ah. Midda labaad haddaad tahay qof ammaane xaafid ah. Midda saddexaad haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan. Midda afaraad haddaad tahay xalaal miirte. Afartaas sifo qofka muslimka ah haddii uu leeyahay khayrka adduunyada yaala iyo wanaagga adduunyada yaala kama tegin ayuu yidhi Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad Allah iyo Nabigiisa aad jeceshihiin oo aad doonaysaan inaad jeclaataan marka aad sheekaynaysaan run ku sheekeeya, marka liina aaminana ammaanada ilaaliya, dad ballan qaadaanna ha ka bixina ballanka. Allah iyo Nabigiisa inaad jeceshahay waxaa u daliil ah akhlaaqdaada, saad ula dhaqmaysid waalidkaaga, saad ula dhaqmaysid deriskaaga, saad saaxiibadaada ula dhaqmaysid, saad walaalahaaga ula dhaqmaysid, saad muslimiinta ula dhaqmaysid. Intaasoo idilba waxay daliil u yihiin inaad jeceshahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo Allah subxaanahu wa tacaala.